بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaanu xarunta Somali Academy idinka soo gudbinaynaa casharadii fasalka afraad ee dugsiga sare gaar ahaan maadada Soomaaliga. Casharka koowaad ee aynu qaadanaynaa waa miisaanka maansada. Miisaanka maansadu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ku soo kordhay aqoonta casriga ah ee maansada Soomaaliga. Barigii hore dadku gabay bay tirin jireen, geerar bay tirin jireen, masafay tirin jireen, laakiin waxa jira hees hawleedyo fara badan oo ay u adeegsan jireen nolosha maalinlaha ah sida raacista maqasha, lulista haanta iyo waxyaabo fara badan oo kala gedsan kabada. markii koobaad waxa laga fikiray in godadka maansada loo habeeyo sida ay u habaysan yihiin godadka kale ee ay leeyihiin luqadaha Ingiriisiga iyo luqadaha Carabigu labaduba. miisaanka maansada Soomaaliyeed waxa daahfuray laba aqoon-yahan oo kala ah Allah ha u naxariistee Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye iyo Cabdilaahi Diiriye Guuleed Caraale. Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye waxa uu yiri 1969 ayaa waxa la dhigay miisaanka ama wasniga gabayga Carabiga. waxaanu isku dayay xilliga inuu qoro miisaanka maansada Soomaaliga laakiin afka oo aan qornin awgeed way u suurtagal weyday. sanadkii 1972 markii la daahfuray ama la qoray farta Soomaaliga ayuu helay. marka miisaanka ay leeyihiin godadka Carabigu waxa daahfuray nin la oran jiray Sheekh Khaliil Ahmed Al-Farahidi. Cabdilaahi Diiriye Guuleed Caraale isla xilliyadaas ayaa waxa uu dhigan jiray jaamacadii La Foole, kadibna waxa loo dhigay mitirka ama cabirka uu leeyahay gabayga Ingiriisigu. wuxuu ka fikiray inuu helo Allahumma salli ala Muhammad miisaanka uu leeyahay maansada Soomaalidu. isaguna waa helay laba hab oo kala gedsan bay soo saareen, labadoodana waxa umada soo horgaaray markii loo garnaqay kii Gaariye. haddii aan u soo noqdo miisaanka maansada Soomaalida sida ku qoran buugga loogu talagalay ardayda dugsiga sare ee ku jirta fasalka afraad, maansooyinka waxa uu buuggu u qaybiyay laba qaybood kuwaas oo kala ah tooxgaab iyo tooxdheer. tooxgaabtu waxa weeye maansooyinka ay meerisyadoodu ka kooban yihiin shaqalada tirada yar. tooxdheertuna waa maansooyinka ay meerisyadoodu ka dhisan yihiin shaqalada faraha badan leh. maansada ugu gaaban ee meerisyadeedu ay afarta shaqal gebigooduba yihiin waxa la yiraahdaa mooyaha, malablaha, magacii, mooyaan, tibahana, culus iyo caban baa la yiraahdaa. gebigeeda maansadaas waxay shaqaladeedu ka kooban yihiin afar shaqal. maansada ugu meeriska dheer maansooyinka Soomaalida ama kuwa tooxdheerkuna waa maansada kabada. naagta kabadalehey kaalin daranay adankaydu sii dhigan. saddex qaybood oo isa saaranayay ka kooban tahay. marka laga hadlayo miisaanka maansada Soomaalida ilaa hadda waxa jira laba aragtiyood oo ay soo kala saareen labada aqoon-yahan waa Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye iyo Cabdilaahi Diiriye Guuleed oo Caraale caan ku ah. waxaynu maanta ku bilaabaynaa inaynu ardayda fahansiino xeerarka uu ku dhisan yahay miisaanka maansada Soomaaliyeed gaar ahaan aragtida Caraale. Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye markii uu sameeyay miisaanka maansada waxa uu dhigay xeerar kala gedisan, waxaana ka mid ah xeerka koowaad aragtida Gaariye. maansadu waxa ay ka kooban tahay shaqalo iyo shibanayaal. labaduba miisaanka way saameeyaan. maansadu waxay ka kooban tahay shaqalo iyo shibanayaal. labaduba dhismaha maansada way saameeyaan. qodobka labaad ee uu xeerka Gaariye dhigay waxa weeye marka la tirinayo ereyada ku jira maansada qaarkood shaqaladu waxay qaarkoodna waa shaqal gaab, qaarkoodna waa shaqal dheere. Gaariye waxa uu qaadanayaa shaqal gaabka tiro ah hal, shaqal dheerayaashana wuxuu qaadanayaa tiro ah maxay laba.
waxa intaas dheer oo iyadana ay tahay inaynu fahno ereyada qaarkood sida xarafka wa iyo xarafka ya iyo xarafka ya mar waxay u shaqeeyaan sidii shaqalada mar waa shaqalo marna waa shibanayaal oo halka ay waada iyo yaadu ku jiraan waxa lagu bedelan karaa shaqal dheer waxa lagu bedelan karaa maxay shaqal dheer haddii aynu sii iftiimino tusaale ahaan imika waxaynu aragnaa soo maaha erey ah khayr halka iyaaba ku jirta soo maaha waxay dadka qaarkood yiraahdaan khayr qaarkood yiraahdaan maxay khayr oo iyadaas waxay u dhaqmaysaa sidii shaqal tusaale ahaan imika haddii aynu nidhaahno hargeysa halka iyaaba ku jirta dadka qaarkood waxay iska odhanayaan hargeysa ayay iska odhanayaan oo iyadaas waxay u dhaqmaysaa sidii shaqal haddii aynu sii wadno mar oo aynu nidhaahno ereyga jacayl dadka qaarkood waxay si fudud u yidhaahdaan jacayl bay yidhaahdaan iyada halkaa ku jirta waxay u dhaqmaysaa sidii allahumma salli calaa maxamed shaqal oo waxa lagu bedelan karaa shaqal baa lagu bedelan karaa tusaale ahaan imika kow oo kale marka la qorayo waxba uma baahnin inaynu dheerayno aynu laba oo qorno waxaynu si fudud u qoraynaa kow oo waada halkaa ku jirta waxay u dhaqmaysaa sidii maxay shaqal oo kale ayay u dhaqmaysaa sidii shaqal oo kale ayay u dhaqmaysaa marka aynu u nimaadno godadka kala gedisan ee maansada inaga oo maanta gudbinayna aragtida uu qabo allaha u naxariistay maxamed xaashi lamac gaariye waxaynu eegi doonaa sida uu gaariye miisaanka u saaro qof kastaana marka hore tusaalayaasha aynu bixinayno waxa uu fahmi doonaa sida miisaanka gaariye loogu adeegsanayo tixaha haddii aynu ka bilowno tixuhu sida ay u kala fudud yihiin iyo waliba xiriirka ka dhaxeeya gaar ahaan inta buuggeena ku qoran tusaale ahaan maansooyinka tooxgaabka ah waxa ugu fudud godka loo yaqaano mooyaha gebigiisuba waxa uu ka kooban yahay afar shaqal ereyga mooyaha haddii aynu eegno mooyaha waxa ugu horeeya laba shaqal maxay laba shaqal kadibna waxa ku xiga shaqal gaab marka waxaynu qoraynaa afar shaqal waxaynu aragnaa guud ahaan godkaasi inuu ka dhisan yahay afartaa shaqal mooyaha malablahana waynu aragnaa hal shaqal baa ugu horeeya shaqal gaab kale ku xiga shaqal gaab kale ayaa ku xiga godkaas mooyaha gebigiisuba waxa uu ka dhisan yahay afartaa shaqal adalina safaratina ayabush waxa weeye ciyaarta ay ciyaar ku ciyaari jireen godka mooyaha marka laga gudbo inagoo u gudbayna kuwa buuggeena ku xusan waxa jirta xiriir ka dhaxeeya dhismaha maansooyinka godka labaad ee ku xiga godka mooyaha gebigiisa waxa la yiraahdaa guuguule waa god gebigiisa shan shaqala maansooyinkiisuna waxay ka dhisan yihiin shanta shaqal oo imika ereyga guuguule waxa ugu horeeya shaqal dheere kala ku xiga shaqal gaab baa ugu dambeeya waxaynu arkaynaa in gebigiisuba uu ka dhisan yahay shanta shaqal guuguule gaagaabso giigida laga bilaabo mooye godka aynu marayno ee guuguulaha shaqalka shanaad waxa la gelinayaa qows
markaad buugga eegtaan waxaana loo yaqaanaa xundhurta waxa uu barbila u yahay godad fara badan oo kala gedisan way marka laga gudbo godka guuguulaha kuwa buuggeena ku qoran waxa kamid ah godka loo yaqaano maqasha godka maqashu waxa uu ka samaysan yahay ama uu ku dhisan yahay hees caruureedii ay ciyaalku qaadi jireen marka ay maqasha la joogaan maqalay warlay ma lagu warramay waxa weerar dhacay in cali la dilay oo cumar la dabay yaa ii warramay ma walaalkayba waaleed ka yimi weli hoose iyo waaleed ka yimi godka maqasha ciyaalku ay adeegsan jireen maanta suugaan fara badan oo kala gedisan iyo hees ayaa ku dhisan hadba waxaan arkaa ano ay cidlaa eridhaban sidii ku ololaye caashaqa dhabta ruuxii dhamaa shaw kama dhargee wuu kuba dharsa inkastay dhahaan way kala dhinteen qofka kugu dhex nool siduu guuleeyadu ku dhalataa ayaa iyaduna hees ahayd godka maqashu haddii aynu miisaanka maansada ee saarno caraale agaariye baan u jeedaa maqalay warlay ma lagu warramay yaa ii warramay ma walaalkayba weli hoose iyo waaleed ka yimi waxaynu tirinaynaa shaqalada ay ka dhisan tahay markaa shaqalgaab bay ku bilaamaysaa shaqalgaab kaste waxaynu isla qaadanay ama gaariye soo saaray inuu hal yahay waxa ku xiga shaqalgaab kale oo isaguna waa hal waxa ku xiga maxay shaqal dheere isagana laba aynu u qaadanayno shaqalka shanaad ee war ku jira waa ka aynu soo nidhi waxa la yiraahdaa xundhurta markasta waa inuu shaqal gaaban noqdo waxa ku xiga oo ay ku dhamaanaysaa shaqal dheere sida awgeed inta badan meerisyada godkaas maqashu waxay ka samaysan yihiin 7 shaqal haddaynu meeriska labaadna miisaano waa waxaan u jeedaa shaqalgaab buu ku bilaabmaya kow ah shaqalgaab kale ku xiga oo isaguna kow ah shaqal dheere ku xiga 2 ah waxa ku xiga shaqalka aynu xudunta ama xudunta u bixinay ee qowska la gelinayay oo isaguna shaqalgaab markaste ah waxa ku xiga 2 shaqal waxaynu arkaynaa in guud ahaan meeriskaas godka maqashu uu ka samaysan yahay ama uu ka dhisan yahay 7daas shaqal suugaan fara badan oo Soomaalidu ay curisay ayaa godkan ku fadhida waayeel dadow inaan waalanahay duni weersido waligeed dhinto wacadkiyo xadhkii weydaarataan weetaynaya raga doorkii aan ka dugsanayeeyo laftu daayin abi daynayninoo waxaan doonayaa inaan dadab galle ayaa iyaduna ka mid ah marka laga gudbo godkaas aynu maqasha u bixinay haddii godka maqasha lagu daro hal shaqal waxa samaysma godmaanseed la yiraahdo mulaaxda ama dabahuwan way godka afraad aynu soo qaadanayna waa kaas aynu u bixinay mulaaxda ama dabahuwan godkan mulaaxda ama dabahuwantu wuxuu dhashaa haddii hal shaqal xagga dambe lagaga daro godka maqasha haddii godka maqasha hal shaqal xagga dambe oo waliba shaqalgaab ah lagu daro waxa samaysma godka loo yaqaano mulaaxdu waxay ku qotontaa hees ay habluhu qaadi jireen marka ay meydhaxda soo guranayaan naalangalola oon wali la diiran naamayla diiran kula diiran maayo oo maxaad ku diidi waa heesta dhismaha noocaasa leh waa wiil cagaagan ceelgaabta jooga casar buu agtayda heesaha ay dadku garan karaan ee godka ku fadhiya waxa kamid ah Cabdi Haybalaambado kale markuu leeyahay arigii xaraasho awrba ka jooga daawaha laftiisa waan soo amaahday godka laaga hadaynu nimaadno waxa weeye
nalago lago balaga hada nalago lago lago waxay ku bilaamaysaa laba shaqal dheere laba ah shaqal dheere kale oo laba haba ku xiga shaqal gaabkii xundurta ama xudunta aynu u bixinay ee bartanka jiiftada gali jiray baa ku xiga waxa ku xigaya shaqal dheere kale oo isaguna laba ah waxa ku dhamaanaysaa hal shaqal marka waxa ay la mid tahay ama godkaasi inta badan uu ka dhisan yahay maxay 8 shaqal buu ka dhisan yahay lago nalan galola meeriska labaad un baynu iyadana miisaanka saaraynaa oo tusaale ahaan waxaynu aragnaa in shaqal dheere ay ku bilaabantay shaqal dheere kale ayaa ku xiga shaqal gaabkii xundurta ama xudunta aynu u bixinay bartanku ku jira kadibna shaqal dheere kale ku xiga shaqal gaab ugu dambeeya waa 8 shaqalay waa 8 shaqalay waa godkaas aynu mulaaxda ama daba huwanta u bixinay waxa samaysma godmaanseed caan ah oo loo yaqaano jiiftada waxa samaysma godmaanseed caan ah oo loo yaqaano maxay jiiftada godkan caanka ah ee jiiftada waxa ku dhisan silsilad maanseedada aynu naqaanay sida tusaale ahaan deeleyda ama siinleyda labadu waxay ku dhisan yihiin maxay jiifto waxa ku dhisan heesaha aynu inta badan naqaano hooyo ilaanta adduunyadu hubaashi habeenka ma baxdeeno iftiin lama heleeno ku sinaan dharaartii la sargooyi dunidee rabigay sameeyay cirka sare u taagay saylo guyaal badan soo baxa kaliishi seelseel loo degay sanad geelu badi dhalay godmaanseedka loo yaqaan jiiftadu markuu gaariga dhigay wuxuu yiri ama waa sagaalay godmaanseedka jiiftadu markuu la tirinayo wuxuu noqon karaa sagaalay ama 10 lay sagaalay ama 10 lay waxaynu uga jeednaa godka jiiftadu wuxuu ka dhismi karaa ama 9 shaqal ama 10 shaqal ama 9 shaqal ama 10 shaqal waa sagaalay ama 10 lay ay xundurtu miisaanto ama qaybiso haddaynu soo qaadano laba god ama laba tusaale oo kala jiiftada sagaaleyda ah iyo jiiftada 10 leyda ah jiiftada sagaaleyda ah waxa tusaale wanaagsan inoo ah hooyoy la'aanta waxay ka dhisan tahay laba shaqal ee koowaad iyo laba shaqal ee ku xiga iyo shaqalkaas xundurta ama xudunta ah iyo laba shaqal meeriskaas maansada ah ee hooyo la'aanta waa jiifto maxay ah sagaalay xundurtii baana miisaamaysa waxaad xasuusnaanaysaa markaad jiiftada joogto haddii ay sagaalay tahay mar kasta meeriska shanaad waa shaqal gaab ah xundurta oo qoyskaas aad loo ogaanaysaa ama gelinaysaa waaye haddaynu soo qaadano jiifto ah 10 lay haddii caashaq halis yahay imaka hal shaqal bay ku bilaabantay laba shaqal baa ku xiga xundurtii ama xuduntii waa taa hal shaqal baa ku xiga hal shaqal waynu aragnaa inay wadartu tahay 10 way haddii caashaq halis yahay waa meeris jiifto ah oo 10 lay ah marka la joogo jiiftada 10 leyda ah xundurta ama xuduntu markasta wuxuu noqdaa kalixaad buu noqonayaa 1 3 5 kalixaad buu noqonayaa waxaynu sidoo kale soo qaadan doonaa mid iyo laba godadkaas xiriirka la leh dhismaha jiiftada ah mid iyo laba godadkaas ah kuwa xiriirka la leh maxay jiiftada haddii jiiftada oo numberka shanaad inoogu qornayd haddii jiiftada oo ah taa shanaadtii inoogu qornayd haddii godka jiiftada lagu daro hal shaqal gaabo xagga dambe lagaga daro waxa samaysma godka loo yaqaan haanta ama ciirta godkaas haanta ama ciirtu wuxuu ka soo jeedaa heestii ay haweenku adeegsan jireen marka ay ciirta lulayaan
هانتي قابوي قورير لبقال لغو كالاتر لبقال انكوبو وقوران سيجي برطي waxa ku fadhiya heesta salahan hadrawiya tiraahda qalinka wax suureeya kugu sima halka doonto saaxiib kan furan weey sunto fara ku hayntiisa waliga hasiideen heesti ciyaalku ay dacwada u qaadi jireen hooy dayoy heede dayo faarahay heede faadfaadisay heede faadum ardoy heede hadii salahan god ka hanti qaboy qoriyar hanti qaboy قورير هانتي قبوي قورير ميرش كاسين سوق عادنا كلية أو واحد نارجناه ميرش كاسي وحكوا بلا ما شغليره كلا كحية كي أينو بحنا حنور طايا كحية شغليره كلا كحية وحكوا يعيش شغليره كلا أو وحكوا لما لي هال شغل جاب ويسجن قوس الجلية مركها وتوين شغلي أما كوبي توين شغلي toban shaqale ama koobiyo toban shaqale waxaynu u gudbaynaa gabayga waxa loo yaqaan boqorka maansada waxa loo yaqaan maxay boqorka maansada waxa uu kamid yahay kuwa ugu shaqalka dheer miisaanka maansada Soomaaliyeed gabayga bariga hore waxa miisaan u ahaan jiray in hooyalaye hoobe kadibna raagowgaas baa yiri wama u bedelay hooyalaye raago maxaad uga jeedaa baa la yiri wuxuu yiri hooyalaye gabayga way ugu horeysaa halna kama tirsana maansaday soo hargelisa waxa kale gabayga tusaale ama hal ku dhigo hoobalayo heede oo heesaha gabayga tusaale ahaan marka la qaadayo geeliyo looban leenihiya gaaban wadi hoobalayo heede gabaygu waxa uu ku dhismaa inta badan ama 18 shaqal ama ilaa 22 shaqal inahaas ayaa lagu qiyaasaa waana boqorka maansada waxa kale oo gabaygu ku dhismaa hadii laba Soomaaliland rantaas waa 10 shaqal hadii laba meeris oo heesta haanta la isku daro waxa samaysma gabay haantii qaboy qoor yar laba qaar lagu kala jir haantii qaboy qoor yar laba qaar lagu kala jir gabaygu wuxuu samaysmaa hadii la isku daro laba shaqal ama laba meeris oo heestaas haanta hadday tusaale hal meeris oo gabayga soo qaadana gabayadu waa badan yihiin gabaygii uu tiriyay Allah uu naxariistay Cabdullaahi Suldaan Timacade dugsi mala qabyaaladii waxay dumiso mooyaane dugsi mala qabyaaladii waxay dumiso mooyaane وعادي هم وحين وترينا شغلة سيدي أي نوتريني إن الله مسلا كوي هراء ودوكسي وحكو ترى لبا شغل قاب هل شغل قاب كله هل كاس وحنوتي وسوق ليش قبيا الذي الله شغل قاب هل كاس نوا لبا أو يدا سوى حوله مثلا سيدي شغل مركا أنت هراء شغل ولوجي صدق شغل إمسين لغنيان وحين لغنيان 12 شغل قيبتي هوري قيبتي ضمنه وكو لبا صدق شان تضبا سيديد قيبتي ضمنه سيديد دا قبيب سيديد دا أيي نقطة مركا ينسوكي إنه 12 إيو اللهم صل على محمد سيديد قبيقا وحين أركينا إنو إنت بدن كان اسمه 20 شغل قبيقا وحين أركينا إنت بدن إنو كان اسمه 20 شغل marka la joogo miisaanka maansada ee Allahu masala ala maxaa arhaale gabayga wuxuu qaybiyay horis waa inta ka horeysa halka uu gabayaagu ku nasto horiskuna waa inta ka dambaysa waxaan faahfaahin doonaa bari ama marka aynu bilowno miisaanka maansada ee Allahu masala ala Muhammad arhaale godadka kale ee buu qorayo
godadka kale ee buugu qorayo ayaynu mid iyo laba iyagana raacinayna inagoo ku dhisayna aragtida uu soo jeediyay Allahu naxariistay Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye godadkaas waxa kamid ah uu soo jeediyay Gaariye ka loo yaqaano maroodi cadhoole cadhoole haddii col sheego cadaada ku meera hashi cusub waatan hargeysi ma toostay hoggaanka ma diiday hiday u lahayd harqood kama tuurtay heeso fara badan ayaa godkaas ku qotoma maroodi cadhoole waa godmaanseed gabigiisuba ka samaysan 8 shaqal haddii godmaanseedkaas maroodi cadhoole laga gudbo waxa samaysmo godmaanseed loo yaqaano baarcade ama saar waqooyi ayaa looga yaqaanaa baarcade koonfurna saar baa looga yaqaanaa oo tusaale ahaan waxa la odhan jiray hiyeelow hoobiwa habluhu gaagaaban ama gudin baa lagu sarjaray waa halka uu ka soo jeedo waxa tusaale u ah jacayl lama moosi karo sidii mayaygu daa baarcadaha masaarka jacayl wuxuu ku bilaabmaya shaqalgaab laba shaqal baa ku xiga oo iyadaas waa sidii shaqalka oo kale waxa ku xiga shaqalgaab iyo shaqaldheere shaqalgaab iyo shaqalgaab 1 3 4 5 6 7 8 9 10 baarcaduhu ama saarku wuxuu inta badan ka dhismaa 10 ka shaqal heeso fara badan ayaana ku qotoma heleeloy hebedka geel hashaan maqashay iska celin haraatiintaanay dhalin markay hiigaan irguhu jilaalkii bay hadhaa haddii baarcadaha ama saarka laga gudbo inagoo buugeena raacayna waxa samaysmo godmaanseed loo yaqaano dhaantada ama loo yaqaano hiruwada ama loo yaqaano maxay heelada ama loo yaqaano balwada intaasoo dhan ka aad tidhaahdaba wuxuun bay u jeedaan ciyaar isku mid ah dhaantada hiruwada heelada iyo balwadu waxa inta badan maansooyinka ka sameyn jiray Allahu naxariistay Maxamed Ismaaciil Barkad Cas ama Baraayo Cas oo awowgay ninkii indhaha tiray ninkii aabahay adoonsaday ninkii anigana iibsaday ninkii ifkaygu adoon tiray hooyaday gacala afkuun garatee sidii garanuug abaareed ama sagay laacay geed sare balwada iyo heelada iyo hirwadii oo meelihii ay ka soo bilaabmeen fankan casriga ah ee maanta Soomaalidu ay adeegsato haddii aynu hal tusaale ka soo qaadano godkan sidii qudunquunto qaaxa yaray sidii qudunquunto qaaxa yaray markaad qoysashaan ku qaayibay sidii qudunquunto qaaxa yaray markaad qosashaan ku qaayibay waxay ku bilaabmaysaa shaqalgaab shaqaldheere ku xiga shaqalgaab baa ku xiga shaqaldheere waxa ku xiga maxay shaqalgaab shaqaldheere shaqaldheere haddaynu tirino 1 3 4 5 6 metodoba waan u jeedaa 8 9 10 11 ka shaqal ayay inta badan ka dhismaan heelada ama hirwada ama balwadu marka intaas laga gudbo waxaan ku soo khatimayaa miisaanka maansada ee Gaariye god maanseedka ugu dheer ee laga alifo maansada Soomaalidu waa heesta kabada waxay ka kooban tahay 3 dhudood oo isa saaran naagta kabadalahey kaalin daraney adaankaydu sii dhiganey koronkor cuni mayno kariba mayne karuur geel ma lahayaa heesta kabadu waa heesta leh
meerisyada ugu dheer ee laga alifo maansada Soomaalidu wixii inooga hadhay miisaanka maansada ee gaariye iyo lafagurka miisaanka maansada ee Caraale casharka dambe ayaynu ku qaadanaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.